iyadoo gobolka Hiiraan uu si dardar la kaga socdo howlgalka ka dhanka maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Sariye Guuto Sahal Cabdulle Cumar waxa uu kulan arintaasi ku saabsan uu la qaatay agaasimaha guud ee hay'adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalulshe iyo ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha ciidanka Cali Jeyte Cismaan mas'uuliyiintan ayaa ka wada hadlay sida loo sii anba qaadi lahaa dhamaystirka dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab oo maalmihi soo dhaafay si dardar la kaga socday deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan mas'uuliyiintan ayaa si gaar ah u amaanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dadka deegaanka oo isgarabsanaya kuwaas oo maalmihi la soo dhaafay deegaano fara badan ururka al-shabaab kala wareegay waxay sidoo kale mas'uuliyiintan sheegeen in maalmaha soo socda ay ururka al-shabaab kala wareegi doonaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan waxay sidoo kale uga digeen dadka shacabka ee ku sugan meelaha ururka al-shabaab ay ka haystaan gobolka Hiiraan in ay iskaga baxaan waxayna sidoo kale sheegeen in ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay sidoo dhaqsiyaha badan uga howlgali doonaan deegaanada ururka al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan howlgaladan ka dhanka maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo iminka sida dardarta la kaga socda gobolka Hiiraan ayaa imaanaya xilli inta badan la xaliyay siyaasadda gobolka Hiiraan kala dhaxaysay maamul goboleedka Hirshabeelle waxaana sidoo kale la qaaday isbaarooyin fara badan oo yaalay gobolka Hiiraan